heerka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad ay weeliyeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco barasaabka gobolka Togdheer Mudane Maxamed Muuse Diriye ayaa maanta waxay si wada jir u dhagax dhigeen mashaariic horumarineed laga hirgelin doono gudaha magaalada Burco kuwaas oo laga bilaabi doono iskuulada Sheekh Bashiir iyo waliba Fahmaan Nuur oo laga hirgelin doono garoomo lagu ciyaari doono kubadda kolayga sidoo kale waxay dhagax dhigeen dayactir xoogan oo lagu sameyn doono taalada Sheekh Bashiir ee magaalada Burco barasaabka gobolka Togdheer iyo waliba mas'uuliyiinta maamulka golaha deegaanka ee degmada Burco oo arrintaasi ka hadlayana waxa yiraahdeen sidan waxaan dhagax dhigaynaa annaga iyo gobolka iyo dhammaan mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada isku duuban garoon ciyaareed oo ah kubadda gacanta in halkan ay noqoto centerkii Burco handball center ay noqoto oo dhalinyarada xiisaysa kubadda gaar ahaan kubadda gacanta ay halkan u noqdo center ahaanayo waxbaynu ka bedelaynaa waxbaynu u qabanaynaa Burco 10 kilomitir oo wada oo laami ah oo laamida madaxtooyada horumartoo kala aan hayn tiimkaanu sameynayay kuyaanu sameynayay aan hayn ee bahashii dhigaysa la keeni doonaa laga bilaabi doonaa dhawaan 10 ka wado kharash bay u baahan yihiin kharashka ay u baahan yihiin qayb madaxtooyada bixinaysa qaybna waxa loogu talagalay markii aanu isla eegnay qaybta kalena in halkii la oran siyaad oran jiray suuqii baclaa weynaa halka ahaa in dib loo dhiso oo la weyneeyo oo mool weyn oo dul hoos laga dhiso ka degme ahaan runtii taladu way marna way khaldantaa marna way saxantaa waxa aanu maanta ku wada socnaa waxa weeye in horumarkii degmada ilaa heer gobola la balaariyo sidoo kale arrintaasi waxaa si weyn u soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha isboortiga ee gobolka Togdheer iyagoo dhammaantood ma arrintaasi ku amaanay maamulka heer gobol iyo heer degme ee magaalada Burco tabaha haatee arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli maalmihii u dambeeyay dhammaanba maamulka golaha deegaanka ee degmada Burco ay dhaliilo xoogan kala kulmayeen shacab weynaha reer Togdheer waa Cadnaan Siciid Cige Cadnaan Miyaami shabakada wararka ee Betel News magaalada